مرة بعد دي صورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كلا يجا بحيموت سودو هذا أبنا دي سلامة يا فرطو فيديو جي عن دوبايو دو يجا بحيموت صوب وستكريب عن سلاحة أبنا دي سلامة يا مير كستو تشوف تام واحد شرطة إن جوري برواق الله ينحضر خالد جوري برواق ما قاعد كلو ملاي مكلب حي خالد جوري برواق ما كان ذي آخريو بيرسونال هانتيسة خالد ونيك وزارة الوفافين هايستا هاي بهاون وين هذا كي إن هذا لماذا مركل لقي مثلا وانا شار نحي شار عن سيكرة جند إلا بدو ذكوري runtii waan ku aqdashay waan ku aqaqliyeystay waxa dhalay aabo wanaagsan waxa dhashay hooyo wanaagsan wuxuu ka soo jeedaa family aad wanaagsan waxa jirta hadda wasaaradda warfaafintu qabsaday dadkii wasaaradda warfaafinta ku dhalan gaadhay iyo inamadii intaas oo dhanka shaqeynay waad ogtiin wuxuu kula dhaqmay dadka bilaadanka xilka qaadistu muhiim maaha dadku xilka way ka tagaan qofna xilka lama dhalan waxa ka wanaagsan inuu iskugu yeedho dhaqda kaalaya oo soo fadhiisiyo ilaa xilkii waan diga wada qaaday dhalinyarta san dhibay dhalinyartaana la shaqeeya runtii aad bay muhiim u ahay iyaguna kamay hor imaadeen way la shaqeeyaan laakiin respect la'aanta oo intuu wada kaga qaaday oo waliba idin la kulmi maayo kadinka askar isku dhigay askarta markay isku dhigay Muuse bixi baan askari ka haysan marka aad baan u dhaliilaya imikana wuxuu keenay inuu reer aflagaadeeyo inuu qabaayil aflagaadeeyo waxaan leenahay anagu lama qabno namana matalo shakhsiya qabiilahana naguma matalo shakhsiyahana isagu bas matala xitaa family-giisa uu ka dhashay nama matali karo ninka gurigay hooyadii ku dhalatay ninka gurigay ku wada dhasheen caruurtu ee aabihii ku dhintay hooyadii ku dhintay walaashii ku haysta ay walaashii u gaadhay heer hadda lacag jacayl u tahay iyo iibi aniga xool lacagta aydi may gurigaan iibinaya horta kaasina nin kareerkii iyo walaashii reerkooda u roonaa waay nin kalena uma roona waxaan idin leeyahay ninkaasi waa nin dhintay waana nin caafimaad qaba ma because aqliga wanaagsan anigoo dumari ma samayn karo inta wuxuu isku maray anigoo dumari ma samayn karo marka waxaan idin leeyahay xaal baan siinaya namadii wasaaradda warfaafinta waxaan leeyahay ma guurtaatiin idinku qof kastaas qofkii si fudud u imaada si fudud buu tagayaa xasan yarana waxaan leeyahay waxa samaysay waa lagu jeedaa waana caad shukri xariirna iyada sidoo kale waxaan leeyahay shukri xariire waxa tahay bahda wasaaradda warfaafinta raggan waaweyn la waqtiyadii ay shaqeynayeen u bad shaqeynaysay marka waxaan leeyahay kulay wax badan waad u suri weyday dumar baatay kugu talax tagi maayay waxaad samaysay khalad buu ahaa markoobaad iyo mar labaad iyada taasaan ku dhaafayaa inamada wasaaradana waxaan leeyahay xaal qaata اللهم صل على محمد مغورتاتين وجوغيسان dhalinyarta la magacaabina waxaan leeyahay idiga ma xuman nimankan waa inamadii idin soo gacan qabtay maalinta wasaaradda timaadeen laakiin inay gunnimo qaataan oo bahdilaad ay qaataan absolutely fool xumay hay bahdilaad bay qaadan waayeen laakiin kama xuma inaad idinku wax noqotaan kuwii wax idiga dhigay wasaaradda idin soo galiyay TV-ga idin soo galiyay waliba idin soo gacan qabtay waad ogtiinay ku jiraan inamada cusubna taasaan ugu jawaabayaa talabaadna waxaan leeyahay hablaha la aflagaadiyay amba qabiiladu aflagaadiyay annagu reer ahaan lama qabno waa isaga keligii ninkana nin caafimaad qaba aan uma aqaano ninka magacay hooyadii u bixisay iska bedelay please mar labaadna waxaan idinka codsanayaa inaydan ku sheegin guri barwaaqo wuxuu ahaa aabba qaaliya wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan jaar ahaan iyo tolnimo ahaanba nin aad u dahab u ahaa marka nin loogu matali kara ninka maha please mar dambe ha ku sheegina guri barwaaqo ha ku sheegina ma matalo mana noqon karo marka waxaan idin leeyahay ninka qayrkii loo xiiro waad la soo qoyso ninka family-giisii dhaafi waayey runtii ma dhaafayo cid kalena dhawaana waa la bedeli doonaa waxa igu wallaahi sida ku socdo nin sii joogaya maaha marka idinkana yaanay hadal xun idiga tagin allahumma salli ala maxamed aflagaadadii dhacday waan ka xaal marinay hablaha ilmaadeerada tolkay waxaan leeyahay ceeb iyo caytoona madgeydaan marcad baatiin xariir baana idi saaran qabiil ahaan nama matalo imika la sheegay mar koobaad iyo mar labaad
ninka magaca beenta la baxayna ma matala annaga magaciisana ma aqaan runtii inaan bartana ma jecli qofka noocaas oo kale qof la baran kara maaha waa dadka laga dhuuntay la iska qariyo cidda u soo waliba ha u soo jawaabina baan doonalayo qofka u soo jawaaba waa qof la mid ah aniga maanta jawaabtaana waxay keentay inaan dadka ka raali geliyo khaladkaas ka dhacay marka waxaan idin leeyahay walaalo mar koobaad iyo mar labaadba xaal baan idin siinaynaa haybahan qabiilahan ilmaadeer baan nahay haddaanu nahay laakiin waxaan ka raali annagana ma matalo odayaasheeda ma matalo reerkayaga ma matalo annagu haddaanu maqaayil lahayna dadka aflagaadeeya ma nihin dadka tolkooda eryadana ma nihin dad cid xumeeyana ma nihin haddana maanta dad xumaynaya ma nihin waxaanu idin leenahay wixii haybahaan madaxayaga idigu soo gaari waan idiga raali gelinaynaa raalli ahaada mar koobaad iyo mar labaadba lama qabno odayaasheedu lama qabaan hablaha iyagu lama qabaan annaguna lama qabno وساعد نوصل لك waxa laga topiga laga hadlaya ninka soo bara horta dib ugu noqo walaalo waan idin raali gelinaynaa ina maxaa la raacay ninka magaciisa ma aqaan muxuu ahaa magaciisa ma xasuusta xitaa ninka wasaaradda warfaafinta haysta nin siyaasad galay maaha nin dawlad wax ka qabtay ma ahay nin deekaligi habeenii maalin soo jeedo wax qorayo ahaa inta badanna qoraagu qoraayo badan bay igu soo koosan dooneen qoraagu uu iska saamilay baday marka intii ehlu cibaadadiina kuma yara khafiifto diinta sii haysata inta bila diini laakiin dadka qoraaga inta badan way iska yara hawlahooda cirka marka waxaan dileenay xaal qaata ina guri barwaaqo khalad ku sameeyay maadaama magaca aabihi annaga nagu soo galay waanu diga raali gelinaynaa ساعد مسابقة ما حد يعني حيب حد مكاهي لها ما كهلا ساعد مسابقة لقي ما تو قف ما أنت وحكيست يعني جوا قف أنا جاي نادر كي مكا وحويان إن الوحي قال ذا وانتوش قفت مكا وحنا دلائي هاي ضمير كي بوسين وعي خلادات كتيرة إن الوقت كشتو رنتي هراء جماعي ذا بران إن الفيديو ينوع عنو كلا أصوات دوبو أو إن القفكو أتاعي نو فرحان بديجا براتين وصل بديجا براتين برنامج كلا عنو كهلا يديجا براتين iigamaydan baran waxaano kale laakiin wax bay ku kalifay marka waxaan idin leeyahay maanta dulqaata shadhow insha Allah waa la bedeli doona wasiir walbana waxa lagu eegaa waxaan leeyahay inamada wasaaradda warfaafinta ka tirsan amba inamadii la xumeeyay waxaan leeyahay Muuse Bixi waxba idigu sameyn nin kasta wasiir kasta uu magacaabay wuxuu u qabtay muddo kooban uu wax qabadkiisa kaga eegayo marka Muuse waxba idigu sameyn nin wasiir buudiisa magacaabay waqtigii lagu eegayay markuu arkana wixii qaladaad ka imid iyo wixii qalad waa la isku miisaamayaan marka ninkii qarankan waxba uu qaban waayay amba wasaaradii wax ka qaban waayay uu iska tagayaa ku kalunba la keenaya wax problemna ma laha annaga idin raali gelinay wixii idin soo gaaray annagu waan idin la dareemaynaa aad baan ugu xumay mar koobaad iyo mar labaadba inuu khaladkaasi idin soo gaadho mana geydaan shaqada la idiga joojiyayna way iska caadi wax badan baa idin saxmi doona waqtigu wuu hagaagi doonaa xumaaniyeyda idin gelin xumaanba u meydaan dhalane inama badan oo haybahaan isaga wadaagaan ayaa idigu jira kuwa la xumeeyey oo lamida markaa ha u qaadanina xitaa haybahaan ha u qaadanina inay wax kale jiraan 100 jeer baan idiga raali gelinana wixii idigu dhacay hablaha la aflagaadeeya ida kalena xumaamad baa idin saaran baan leenahay xariir baatihiin ay ma geydaan ceebna ma geydaan ana xaaladii siiyay oo walaashiina reerna ma matala isagu waa kaliya ninka u soo jawaabaana kullay waxaan islay qof la mid ah waxba ha u soo jawaabina problem isaga isku filan dhibaato isku jawaabina isaga isku filan kullay qofka aqliga caadiga markuu khalad qofku waa bilaadana uu qaldami karaa laakiin qofku marka dambe is eego ay inta badan saxan anigu waa xanaaqa waana faasa laakiin marka dambe aan xisaabiya maada qaldanaa marka haddaan qaldan waynaan raali gelin bixiya ibn aadan bayna waynu qaldami karnaa laakiin qofkii aan qaladkiisa ka soo noqon xumaan uu sameeyay aan garan qof maaha marka runtii aniga ninka reerkiisa amba walaashiisa ila dhalatay amba gurigii aabihii hooyo xasuustii familigiisa ku socda kulli cid kale u fadee aabahii leeyay
waxaan idin leeyahay qaata wixii idiga yimid وقف عن عادي حين أنا قف نورمال أو ما أقانو مريت ولا ليس أقول يسوي جوابي هذا كده لكن أنا هو حنلاقي مقعي أباهينا ما نعيبينه أباهي حاج عبد الرحمن بوها يقولها قلت تقول شرع شربت يسي وناقي سروان حبار سنة هاي الحمد لله ووحوية وححني وحوناكسن بوان كلا قانا قفنا محمين كرو قفنا معاي كرو وحن كليه مقعي أباها بعد هوسو دكتي أوكي أنا كي جودها بعد هوسو دكتي kii korkaad hoos u dhigtay waxaan ku leeyahay qofna matala anaga mid qof xunna qof ma matali karaba aad baan idin salaamaya waan idin raali gelinayaa markuu hadiye mar labaadba xaalka qaata wixii dhacay Allahumma salli ala Muhammad aad baan idin salaamaya videogaygaasina wuu ku sii jiri doonaa in badan dawada arki doonta idigoo isagu ka soo jawaabay insha Allah aad baan idin salaamaya ولا شيء أبدا وسلامية قيمين ولا شيء هذا قرأت إلى ديجا إلى ضميرك وحن وقعنا قيمين ولا شيء أنا بتشعلي حياتي وقدم هذا وقف قالي قلبي وناكسن حميه يسموه كانوا سوعينين مركا وحن كلي قدني أبدا ولا الكو سلامية وزير ماها وأنا اللي بدلية أبشر كلها ولا بدلية تضحي حمانتها كله ولا قمي الدمير كودسية إنه قف كاسيك أهين عافيمات في قبيل والله ولا عقدان وح أنا بحط الشوق بيكون نقطة قف كان دكت وحلو بشيء هي قاعدة مركي هربين على النورمال هنا بوان فهم سنة ده سدي بليه وحنو ضحك على مكان ولا شيء سي ويسي غريبة دي بقول أرميس يورد مركا باجرون كل قف باجرون كيس لما وايو مركا وحنا لي مجا عيابها وما تشرن كي رهانا وما تشرن كي شخصي جاجر وما تشرن واحد هالقف لو كلاسة قف كوزير ما أوران كانوا حتى واحد كي مجا هو يدي وبحيين كفاني أنا كان نصرع باي هو يدي بحيين الحمد لله من إلو بكروانا كفانا مجاي مركا مجاعي مجاي واحد وأركت هل كابك قيبة نيك مجاي هو يدي وبحسي إسكاب بدل مجا كلا بحي أرتقف شربا ما ونيك عندي وحواركتها والله بالله يا غير مودية ذا بقدرن بلدي سلامة يا والدي قرها لي قلني حتى ما أنت تعرف كحسن ما سويته رالي الله